waxaan kalinayaa xildhibaanada baarlamaanka sharafta leh Jubbaland sida qiimaha leh oo qaayaha leh ay u muujiyeen midnimadooda iyo sida sharafta leh dimuqraadiyadda u codeeyeen rajo fiican oo aan gashayo haddii madaxweynaha halgankiisa loo aqoonsaday hataa annagana waa la shaqaynayna la socdo annagana ma rajo xumin la socda intaasi haddaan kaga gudbo waxaa la yidhi waxaanay ku har mudana madaxweyne mahadcelintaada koobneed ayaan kaaga fadhinaa waxaan beesha caalamka iyo xildhibaanada sharafta leh ee isugu yimid golaha wasiirada federaalka beesha caalamka hadda maanta waxaan diyaarinay waxaan soo marnay 20 maalmood oo howl aad u adag ah hadal badan ma qabo waan xaqiiqsanahay laakiin waxaan ku faraxsanahay guusha dimuqraadiga ah ee aan gaarnay aad ugu faraxsanahay waxaan idinka iyo saaxiibadii oo intaan loo diiwaankeena munaasabadii caleemasaarka ayaan ugu martaxabeynaa goobtaan soo sheegaynaa waxaan ugu codsaynaa inaan inaa soo eegaysaan ugu laba maalin saddex maalin nala joogtaan waan ugu codsaynaa guddiga waxaan si gaar ah ilmaha kuma jiro waxaa leeyahay warcad run uu dhow yahay warcad run uu dhow yahay marwadii maxamed diidiye warkeeda si gaar baan ugu mahadcelinayaa si gaar ah ilmaha warkeeda niinka loo dhisay maraka loo dhisay qalbiga loo dhisay waana kaaga mahadcelinaynaa haddii aan leedno kulligood idin mahadcelinayna laakayada niinka loo dhistay niinka loo dhistay maanta madaxweynaha khudbooyinkiisa iyo barnaamijkiisa way dambeeyaan waa maalinka caleemasaarka mudana madaxweyne dowladda federaalka iyo beesha caalamka iyo xildhibaanada sida dimuqraadiga ku doortay xildhibaanada kuma jiro xildhibaanada Jubbaland waxaan rabaa inaan u sheego beesha caalamka midnimada loo jeedaan waxaa lagu soo baray ka timid qaabkii lagu soo xulay qaabkii ay usoo dhismeen kuma imaanin xoogaa yar meel mugdiya kuma imaanin farsamo gale waxay ku yimaadeen qaab deegaan qaabka deegaanka ku yimaadeen oo ka madax bannaan laaluus qabiil aniga qor aabatuuki xagga ugu ballamay inta ugu ballamay gurigoo joogaa xagga ka raadi tagsi ijaab waa kuma imaan waxay ku yimideen si xalaal ah oo nadiif ah waxayna ku codsanaya xalaashiina ku jooga waa mahadsantiin kuna madaxweyne waxaan kuu soo dhaweynayaa inaad mahadcelintaada u geyso dhammaan ummadda Soomaaliyeed halkaa fadhido gaar ahaan baarlamaanka kale soo dhaweynaho